maanta idii soo gudbinayno oo khamiisa taariikhduna ay ku beegan tahay 4 bisha Juun sanadka 2026 haddaba barnaamijkeena waxaynu ku bilaabaynaa marka hore arinta Lubnaan iyo Israa'iil xiisada bariga dhexe mar walba waji cusub ay galaysaa hadda Mareykanku waxay ka shaqeynayaan waxayna leeyihiin oo maanta nala ka gadaya inay heshiiyeen Lubnaan iyo Israa'iil وفرصة دولة لبنان إسرائيل إنها هشيين حزب الله هنا هشيس كاسا يسوى حركة لسعون عدة دقالة ما يسنى إنه تاي حزب الله حتى ومركا هشيس كان دور سؤالود أي كاكينين دادك خبر هذا وحي رادين نمبر 1 هشيس كان إسرائيل داعب مكتري مفولي النساء مسوحي هشيسدي هور لوغا برت إنه واحد اسكا ولاقبتو مريكان كونو كوركا فيريو روا لابو سيدي لوغا داعدعنا يا هشيس كان قضبادي شقار كمدا oo حزب ka hor imanaya waxa ay doonayso in xisbullah lagu qanciyo marka waxyaabo la yaab la ku jira laakiin marka hore guud ahaan heshiiska warbixin kooban oo laga qoray ayaynu marka hore ka hadlaynaa haddaba telefishinka Al Jazeera ayaa wuxuu leeyahay Washington waxay ka shaqaysay in la sameeyo oo la calaamadeeyo goob khariidad ah oo loogu magac daray heshiiska Lubnaan iyo Israa'iil heshiiska goobtan waxa uu ku magacaabayaa goobta tijaabada goob la yiraahdo haddaba warbixinadii ugu dambeeyay waxay leeyihiin Mareykanka ayaa ku dhawaaqay in Israa'iil iyo Lubnaan ay ku heshiiyeen inay hirgeliyaan xabad joojin ay ku jirto samaynta aagaga loogu magac daray aaga tijaabada kadib markii la soo gabagabeeyay maalintii labaad wada hadallo xoog leh oo socday kaasoo qayb ka ahaa wareegii afraad ee wada hadallo dhexmara foolka foola Israa'iil iyo Lubnaan waxaana wada hadalladaas ay ka dhaceen magaalada Washington tani waxay timid iyadoo ay socoto dood gudaha Israa'iil oo ku saabsan heshiiska iyo sii socoshada heshiiskan iyo sida uu ku hirgeli karo iyo dagaalada ka socda koonfurta Lubnaan wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in labada dhinac sida Israa'iil iyo Lubnaan iyadoo la raacayo jihada Washington ay wax u doonayso inay ku heshiiyeen in la dedejiyo dhismaha aag cusub oo ay ugu magac dareen aaga tijaabada waa maxay aaga tijaabada waxa la yiraahdo haddaba Al Jazeera oo qeexaysa waxay leedahay sida laga soo xigtay bayaanka Mareykanka ay soo saareen waa aag ka shaqeynaya xakamaynta waxaana si gaar ah u ilaalin doona ciidamada Lubnaan marka laga reebo dhammaan kuwa aan dawladda ka tirsanayn sida Xisbullah iyo kooxaha kale oo markaa aaga laga fogeyn doono madaxweynaha Lubnaan ninka la yiraahdo Joseph Aoun ayaa khamiista ku shaaciyay bartiisa wada hadaladanu inay u baahan yihiin in markaa la iska kaashado si aan Israa'iil fursad loogu siin inay waxa ay doonto samayso waaye marka wada hadallada waxa soo kale ku jira xabad joojin 24 saac gudahood ku hirgalaysa marka waxyaabaha ku jira marka waxa leeyahay aag cusub la keeno leeyahay aaga tijaabada waa xuduudka Israa'iil iyo Lubnaan u dhaxeeya meel ka mid ah Israa'iil marka waxa leeyahay aaga tijaabada waxay rabtaa inay u isticmaasho meeshii ay uga shakiso Xisbullah inay joogaan in ciidanka Lubnaan u dirto tira aaga tijaabada halkaas oo tijaabi rakubaysan oo heshiiskan ku shaqo kulayna joog haddana baxa aaga tijaabada halkaas oo tijaabi marka aagu aag guurguuro inuu yahay oo mar walba meeshii la rabo aaga tijaabada laga dhigi karo iyo aag tarsiim oo la calaamadeynayo sida khariidad oo kale halkan marka Lubnaan waxay leedahay waa aag lagu heshiinayo goob muhiima muayana oo ciidanka Lubnaan ay ka ilaalinayaan xuduud marka waxa leeyahay Israa'iil taas ma ogolaan doonto marka sheekada muranka Israa'iil iyo Lubnaan iyo sheekadoodaba waxa ka daran Xisbullah waxaan ma ogoshay وسؤال موقتها واحد دقالما أو قرية هيستو هذا حبدا كده حزب الله مركب ما أقشعي حزب الله مركب إلى هذا ولي سي official
war rasmi ah oo arrinkaa ay ka soo saareen ma jirin marka laga reebo xubno xildhibaano ah oo xisbullaahi taageero oo sheegay in waxa meesha laga wado ay yihiin waxaan la aqbali karin waxa kaliya loo baahan yahay inay tahay in Israa'iil ay isaga baxdo Lubnaan inta Israa'iil ay ku jirtana aysan xabad aan la hurayn oo marka meesha la isku garaacayo marka heshiiskan maxaa ka soo bixi kara dadku qaar waxay leeyihiin wax weyn oo uu kaga duwan yahay wixii hore ma jiraan sababtoo ah dadkii ciyaarta ku jiray ma ciyaarayaan garsooruhu yuu marka calaamada digniinta yelowga iyo guduudka iyo siinaya qof uu siinayo male dadkii maba joogaan dad cusubaa jooga macnaha ciidanka dagaalamaya xisbullah waxaan heshiiskan ma laga talageliyay may lagama talagelin waaye sheekadu marka halkaasay maraysaa dhanka kale waxaa isaguna hadlay saacadihii lasoo dhaafay wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan isagoo meel ka hadlaya ayaa su'aal la weydiiyay waxa la yiri Iiraan Lubnaan arrinteeda maxay ka tiri wuxuu yiri go'aan gaarnay had cid kasto quseysana waa u gudbin cid kale ma jirto waa Mareykanka waa u gudbin ku saabsan mar dambe Israa'iil haday Beirut weerarto macnaha caasimadda Lubnaan haday weerarto waxay ka dhigan tahay xabad joojintii oo fashilantay wax kale oo aanu arrinkaa ku sameynayna ma jirto haddaba markaan idin tuso wararkii ugu dambeeyay arrinkaa laga qoray wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan Abbas Araghchi ayaa sheegay weerar kasta oo lagu qaado Beirut inay markaa uga dhigan tahay Iiraan inuu dib u bilowday dagaalka gobolka mawjada weerar kasta wuxuu yiri lagu qaado maartay Beirut caasimadda waxay ka dhigan tahay dagaalkii oo dib u bilowday marka wali meesha maxaa lagu tusinayaa Lubnaan heshiis iskala soo gashay Israa'iil waxa kan meeshan dada haysta xisbullaahi oo ka tirsan awlaadii Iiraan ayaa hawshan kaartadeeda dejinay mid kale haddana soo hadlay waxay leeyihiin Iiraaniyiintu guuta la yiraahdo guutada Quds oo ka tirsan ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan ninka madaxda u ahaa maanta hadlay haddaba markaan idin tuso waxa leeyahay taliyaha guutada Quds ee Iiraan waxa uu sheegay taageerada ay siiyaan muqaawamada Lubnaan inay tahay waajib qof kastana waajib ku tahay wakaaladda wararka ee tasniim ee dalka Iiraan waxay soo xigatay taliyaha guutada Quds la yiraahdo Iiraaniyiinta waxa uu sheegay kaalmada muqaawamada Lubnaan la siinayo inay waajib tahay taasoo ka dhigan inay iska saaraan oo dalkooda ka xoreeyaan Israa'iil goobaha ay soo galeen inay iska saaraan oo dhulkooda ay ka saaraan mawjada waxa hadla waxa waaye guutada la yiraahdo Faylaq al-Quds la yiraahdo guutada qaabilsan arrimaha Quds ee ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan waa nimanka qaabilsan muqaawamada ka dagaalanta dhulkaan oo dhan ee awlaada ah ninka wax u qaybiyo waayo oo qaabilsan hubeyntooda tababarkooda waxa dhan marka taas waxay ka dhigan tahay Iiraan shirka ka dhacay Mareykanka iyaduna wax talaa lagama weydiin xisbullah wax talaa lagama weydiin ragaa inta wasaaradda arrimaha dibadda lagu xirtay heshiiseen alle fariimay diraysa marka Iiraan wasiirka arrimaha dibadda muxuu leeyahay Beirut hadaa weerartaan dagaalkii dib u bilowday waaye macnaha annagu saameeyna kuleenahay meeshan waaye Mareykan iska dhigatir ama Israa'iil iska dhigatirtay u taala haddana waxa la sii raaciyay Faylaq al-Quds waxa uu tusinayaa inay iyagu yihiin kuwa maalgeliya muqaawamada dacmiga iyo taageerada aan siino muqaawamada Lubnaan si ay dalkooda u xoreystaan waa arin waajib ah macnaheedu maxay tahay waa fariin kale war waxaan meesha dadkan annaga ku hayno waay awlaadeeni waay heshiis kasta iyo quraafaad kasta annagu waa inaan wax ku leenahay nimankan wadankooda inay xoreystaan ay rabaan mujeda siyaasadda waxa u hadlay ninka la yiraahdo wasiirka arrimaha dibadda arrimaha militariga iyo jugta culusna taliyaha guutada marka meel walba raggan annaga nagu xiran yihiin waay marka sheekadaas marka waa sheeko runtii aad cajiib u ah waay
weli waxaynu ku jirnaa markaa sheekooyinkan soo kordhay ee cusub ku saabsan arrimaha xisbullaahi iyo israa'iil iyo waxa ka socda beesha. waayahay sheeko marka saakay waxay qorayaan warbaahinta israa'iil arrin la yaab leh qorayaan oo weliba la qarinayay. aljaziira marka waxay leedahay warbaahinta israa'iila saakay bannaanka keenta sheekadana marka waxaa leeyahay 4 toddobaad ka hor ay dhacday, waa bil ka hor. guuto uu la socday taliyaha guud ee ciidanka waqooyiga israa'iil dhan haysta, kolonyo baabuurtiisa oo socota ayaa waxaa soo weeraray droniskii baasuukaha wati. u fiirsada sheeko la yaab leh meesha ka dhacday. waxay leeyihiin droniskii gaarigii ku xigay nagta ka saartay, way ku qaldantay. waxay moodayeen inuu kan saaran yahay, waa bil ka hor, inuu kan gaariga dambe saaran yahay. isaguna wuu isku badbedelaa gaariga. nimanka madaxda waxay sameeyaan markii cabaar la socdaba kanuu ka degaa kanuu fuulaa, kanuu ka degaa kanuu fuulaa, way baqayaan. marka diyaaradii waxay ku dhammaatay kii dambe, waa baxsaday odayg. khalkhalaa meeshii ka dhacay. taliyihii 7 maalmood ma kicinaa lagu leeyay. cabsida waaba liidili gaaru iskale isagoo markii horeba nimankaas ahaa oo fulay nimo gurigeeda oo haddana uu sigtay. odayg waxaa la yidhi 7 maalmood qandhadiiaba saas u saareen. haddaba marka aan tusoo warbixin la yaab leh oo arrinkaa laga qoray saakay telefishinka aljaziira wuxuu leeyahay warbaahinta israa'iil ayaa ka sheekaynaysa saakay diyaarad daroona oo xisbullaahi ay leedahay inay garaacday gaari taliyaha ciidamada waqooyiga israa'iil ninka haysta oo dhan bil ka hor. weliba warbixinta aljaziira hadda halkan waxaa ku qoran leeyihiin gaarigay ku dhacday. marka gaariga waa lasii macnaynayaa. xisbullah waxay sheegeen inay markaa gaariga taliyaha ay ku dhufteen diyaaradda koonfurta lubnaan, inkastoo wax dhibaato aan la soo sheegin. sidoo kale telefishinka 14 israa'iiliyiintu ay leeyihiin ayaa sheegaya bil ka hor inay dhacdadani dhacday. ma ujeedaa marka gaariga waxa ku dhacee waa kiisa, laakiin wuu ka bedeshay, wuu fakalay. gaariga lagu yaqaanay taliyaha ayuu ka degay, gaari kaluu raacay. marka gaariga ay bahashu ku dhammaatay waa ka saasaa la leeyahay. haddaba qaybtan waxaynu ku soo qaadanaynaa sheeko kale oo cajiiba oo ku saabsan arrinta iiraan iyo maraykanka. aayatullaahiga iiraan ayaa qoraal uu soo qoray waxa uu ku sheegay inay dadka iiraaniyiintu tahay inay taxadaraan oo ay shilaaliyaan. cadowgu wuxuu hadda u janjeersaday, u leexday dhanka kala qaybinta shacabka iyo gudaha ayuu rabaa inuu xoogga geliyo. halkii military ahaan weerarkii foolka lagu jabiyey fariinuu dirayaa. wuxuu leeyahay shacabka halfay jignaadeen, cadowgu dagaalkii tooskaa waa ku jabinay, ma soo noqon karo, taas waa u dhammaatay, awooddeena wuu arkay. laakiin hadda kadib waxay xoogga saarayaan sidii annaga dhexdeena ay noo kala inqisaam noogu samayn lahayn, kala qaybin noogu samayn lahayn. marka waa inaad ka fakertaan uu leeyahay arrintaas. marka wararkaas waxay ahayn kuwii ugu waaweynaa ee soo kordhay. asxaabay barnaamijkaygii ugu horreeyey maanta waa naga inta aan marka